Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdulaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka hadli doono taariikhda dahabka madow ama shidaalka. Channelka subscribe si videoda like gare kumadna xagga hoose ku qor. Dahabka madow ama shidaalka ama loo yaqaano petroleum waa saliid laga soo saaro dhulka hoostiisa ama badaha hoostooda. Saliiddaasi waa saliid kalarkeedu madow yahay, culays ah, isjiid ah. Saliidda marka la safeeyo oo la kariyo, dhowr noocyo oo saliid fara badan ayaa kasoo. Magaca petroleum wuxuu ka yimaadaa luqadda Laatiinida oo macnaheedu ah saliidda dhagaxa. Taariikhda shidaalka ama petroleumka. Taariikhda shidaalka ama petroleumka waa taariikh dheer oo soo jiidatay. Sababta ay ku caanbaxdayna waxay ahayd markii la sameeyay injiinada sida gawaarida ama dayuuradaha ama warshadaha ku shaqeeya dhagaxa. Dadkii hore waxay yaqaaneen shidaalka madow ee maanta la isticmaalo, hase yeeshee waxaa lagu isticmaali jiray dhismaha ama xabag ahaan. Taariikhda waxaa lagu hayaa dadkii ugu horreeyay isticmaalay shidaalka madow ee qayliin oo loo yaqaano magaalada Baabil ee ku taala maanta dalka Ciraaq. Waxaa kale isticmaashay boqortooyadii loo yaqaanay Persia. Taariikhda cusub ee shidaalka wuxuu ka bilaabmaa qarnigii 19aad. Xagga ay caan ku yihiin laba caalim, mid Canadian yahay oo loo yaqaano Abraham Guinness iyo nin kaloo Maraykan loo yaqaano James Young. Labada caalim sanadkii 1850 waxay awoodeen in ay ka soo saaraan saliidda loo yaqaano kerosiinka ee ka soo saaraan shidaalka qayliin. Xaggii ceelkii ugu horreeyay shidaalka ee si ganacsiga loo isticmaalo laga qodo dalka Romania, isagoo sanadkii soo saari jiray 1000 foosto oo shidaal qayliin. Hase yeeshee Maraykanka 1959 ayuu soo saartay shidaalkii ugu horreeyay gobolka loo yaqaano Pennsylvania. Xagga maalintii la soo saari jiray 20 foosto oo shidaal oo qayliin. Xagga warshadii ugu horreysay ee shidaalka qayliin safeysa ee adduunka la dhisay sanadkii 1856. Xagga laga soo saaray saliidda loo yaqaano maanta kerosene. Shidaalka qayliin siyaabo fara badan ayaa loo kala qaadaa. Hase yeeshee shidaalka waxa ugu horreeyay in lagu qaado foostooyinka oo cabirkeedu ahaa 42 gallon oo maanta u dhigmata 159 litir. Xagga foostadu noqotay cabirkii rasmiga ah ee caalamku u isticmaalo shidaalka qayliin. Foostada shidaalka qayliin waxaa laga soo saaraa dhowr noocyo oo shidaal kala duwan oo ka mid yahay gaasta oo maanta loo isticmaalo cunto karinta, gaasoliinka oo loo isticmaalo shidaalka gawaarida, balaastika iyo waxyaalaha cosmetica gala oo loo isticmaalo waxyaalaha qurxinta, kerosiinka oo loo isticmaalo shidaalka dayuuradaha, iyo dieselka oo loo isticmaalo gawaarida waaweyn ee xamuulka weyn qaada ama loo isticmaalo doonyaha waaweyn. Hase yeeshee dieselkana waxaa lagu isticmaalaa mishiinada dhaliya korontada. Ugu dambeyntii shidaalka laga soo saaro waxaa loo yaqaano asfalt ama daamirka oo loo isticmaalo wadooyinka. Way badan tahay alaabaha laga soo saaro foostada kaliya tole ee shidaalka qayliin. Xagga halka foosto ee shidaalka qayliin ay ka kooban tahay 45% benziin, 23% ah diesel, 9% ah saliidda kerosiin, 15% gaasta cuntada ee loo yaqaano gaasta propane, 3% waxaa loo yaqaano daamirka, 2% waxaa loo yaqaano petrochemical oo laga soo saaro waxyaalo fara badan oo loo isticmaalo nolol maalmeedka. Wixii su'aal aad qabtaan ama mawaadiic aad doonaysaan in aan ka hadlo fiidiyohaadka cusub ee soo socda, fadlan ku soo qor kommentiyada. Channelka Maxamuud Cabdulaahi Xasan wuxuu ku rajaynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh. Channelka subscribe si videoda like gare kumadna xagga hoose ku qor.